السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتنا لو سعوتاي كسو دوادا وراركي ودنبيي iyo dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya halkaad nagala socotaana waa SDTV duqaymihii ugu dambeeyay ayaa ciidamada cirka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay la beegsadeen xarumo ciidan oo ay kooxda argagixisada Tplf ku tababaraysay xogageeda taasoo ku taala magaalada Adi Hagere ee deegaanka Tigray xaruntaasi ayaa waxay kooxda argagixisada ahi si sharci darro ugu qoranaysay isla markaasina tababaro ciidan ku siinaysay tiro badan oo soo abaabuleysay argagixisadu ciidankan cirka ayaa ilaa hadda burburiyay kaydkii hubka xarumaha lagu tababarayay ciidamada iyo warshado ay u adeegsan jireen samaynta direyska been abuurka ee kooxdan budhcada iyadoo ay halkeediina ka sii socdaan duqaymaha dhanka cirka ee la beegsanayo argagixisada Tplf ee rabta inay wadanka iyo qarannimadaba dalka Itoobiya dumiso warkan oo ka soo xiganay FBC ayaa waxa uu inta ku daraya in sidoo kale dalka laga hirgeliyay bayaan degdega oo bando lagu soo rogay isla markaasina deegaanka Soomaalidana loo asaasay xaaladaasi degdega guddi sare oo fulinta bayaankan degdega iyo golaha wasiirada dalku ay soo saareen 23 bishan diqimtii sanadka 2014 waa tirsiga taariikhda Itoobiya taasoo taariikhdu ku beegan tahay 24 bishan loo xil saaray fulinta bayaankaasi tirsigiisu yahay 5 isbaaro 2014 bayaankan ayaa tibaaxaya xaalad degdega oo la geliyay dalka taasi oo la xiriidha ka hortaga halista la soo diristay jiritaankiisa iyo madax banaanida dalkeenan guddigan dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ka kooban xubnahan hoos ku qoran oo hogaaminayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar inuu gudoomiye u yahay halka madaxweynuhu ku xigeenkuna uu yahay gudoomiye ku xigeen waxaana xubinka xafiiska nabadgelyada xafiiska cadaaladda komishinka booliska iyo taliyaha xoogga ciidanka gaarka gudahaan bayaankan ayaa ka dhaqan gali doona dalka iyo sidoo kaleba deegaanadaba wixii inta ka soo kordhana markaste nala soco isla markaasina isha ku hay page-keena ku leenahay YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-gaba ee ah SDTV tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah